waxaa jirta hadda geyiga Soomaaliyeed ma sinna uu kala duwan yahay madala badanna waan ka sheegay doorashooyin qof iyo cod ah xagga iyo waqooyiga ka soo bilaabmeen waxay ka hirgaleen Puntland hadda maanta haddii Cali Maxamed Geedi iyo sheekhay ay yiraahdaan war doorashadii Cali Guduud iyo ma gaarsiin karno runurgoodii na dhaafiya hadhowna xoogay dhowr iyo 20 musharaxna waanu keenaynaa doorasho qof iyo codna meesha ka dhici mayso arrintaas isqaban mayso bal xataa musharaxiinta dib la isugu noqonay xindweena waa ku jira dacal burna waa soo gaadhin hadda waxa la rabaa markaa waxa ka hirgalay Hargeysa ee ka hirgalay Garow ilaa ay Kismaayeen oo ka hirgalay marka doorasho laga hadlayo ra'iisul wasaare Mahdi baa ka hadlayay qofkii Soomaaliga markaad wareysanayso markaad tiraahdo inuu doorasho qof iyo cod weyn higsan karna wuxuu qornay bu'aale ka dhici karta warfad bu'aale hay noo dambaysay 38 degmo ee dhowrka milyan ku nool yihiin ee waxbarashadii la geeyay ee biyihii la geeyay ee qaar ay qaadka geeyaan oo talaalkii la geeyay ay wiilka yara Soomaaliyeed amal kale baan ahayn marna kubad ciyaaraya marna ayidii soo salaamaya bal hal mar codka ha ku rido hadaan raahno waajibaadka kala dhow fulin kartaa laakiin codkaas wali ma qaan gaadhina ka daa aqliga inaynu maanta ka doodayno horta Soomaali weyn dhageysanaysa waxaan rabnaa jaranjar saa u kala dheer buu dalku yahay horta in la sinaado oo doorashooyinka maamul goboleedyada waxa la yiraahdaa degmooyin ay dhacaan oo dadku sinaado niman saaxiibanahay ayaa Facebook tan aad buu u badsara waa siyaasiyiinta waaweyn dalku ka mid yahay saaxiibana inta hanbaliyo diray waxaanu hanbaliyanayaa doorashada deegaanka ka dhacday ee Soomaaliland waxaanu hanbaliyanayaa doorashada ka dhacday Puntland mar allaaliya marka aad ku tiraado warbaltan aynu wadwadnana waa 10 sano u dambeysay lama gaarin buu kulay marka ragga afkaaraha aaminsan waxay soo xasuusiyeen gabay nin hadda dhintay oo zaciim hal la oran jiray Ibrahim Gable oo reer Djibouti ayaa gabay buu leeyahay maanso wuxuu yiri adigooba marwada dumar mihir waad ku geedaay oo maxiiska ruux kale waxa kaaga magac roon adigoo mid mehersadaha lagu mashxarade wuxuu yiri maalkaagu uu noqon marka amniga oranaysa laga hadlo waxay ku oranayaan amni ma jiro dalkiiba shabaab